I try to sell my products, ideas, and to the outside. sheekada guusha ee Jeckma Alibaba. Jeckma waa muwaadin u dhashay dalka China kaasi oo ku guuldareystay inuu ku biiro college-ka ama uu u gudbo 3 jeer kadib markii uu sameeyay diyaarin iyo dadaal caadiga dhaafsan. wuxuu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxi cunto lagu kariyo laakiin badankoodu way ka diideen inay shaqo geliyaan kadib markii uu codsiyo badan oo shaqo u dirsaday meelo kala duwan ee loo diiday ayuu go'aansaday inuu shaqo macalinimo raadsado sababtoo ah uu ku guuldareystay inuu shaqo taa dhaanta uu helo. Jeckma wuxuu dhigi jiray luqadda Ingiriiska isagoo qaadan jiray lacag ka yar $10 bishiiba ka hor inta aanu bilaabin dhigista luqadda. Jeckma wuxuu aad u jeclaa inuu horumariyo habka uu ugu hadlayo luqadda wuxuuna 45 daqiiqo u kaxaysan jiray baaskeeshiisa maalin walba hotel u dhow oo ay dadka dalxiistayaasha ay isku soo degi jireen si uu ula hadlo luqadda Ingiriiska iskana dhiso waayo isagu ma ahayn muwaadin u dhashay luqadda ee wuxuu ahaa nin China ah. Jeckma kuma qanacsanayn shaqadiisa wuxuuna go'aansaday inuu u guuro dalka Mareykanka si uu u helo nolol ka fiican tii uu ku noolaa. wuxuu bartay kombiyuutarka iyo internetka aad baan u jeclaa. markii dambe wuxuu asaasay website loo yaqaano alibaba.com kaasi oo u saamaxay in ganacsadayaasha iyo shirkaduhu ay ku kala ganacsadaan si online ah alaabtoodana isku dhaafsadaan. Alibaba wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dalka China hantidiisa maanta waxaa lagu qiyaasay $20 bilyan. waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 25 ganacsade ee ugu awoodda badan qaaradda Asia. waayihii iyo noloshiisu uu soo maray Jeckma ma uu haysan wax lacag ah oo ku bilaabo ganacsi. wuxuu ku shaqayn jiray mushahar aad u yar wuxuuna si dirqiya ugu biiray oo ugu guuleystay inuu ku biiro macadka tababarka macallimiinta. intaa waxaa dheer in waddanka Shiinuhu aanu waqtiga ahayn meel ku fiican in lagu nagaado ama lagu noolaado ganacsina laga bilaabo. ujeedka inuu soo gudbinayno sheekadani waxaa laga yaabaa ugu yaraan maalinkii 20 jeer adoo isticmaalaya baraha bulshada sida YouTube-ka inay kugu soo dhacdo xayeysiin ah producti la xayeysiinayo oo shirkadani xayeysiinayso taasoo lagu xayeysiinayo alaabo kala duwan. waxaan jeclaystay markaasi in wax laga ogaado shirkadani maxay tahay yaa asaasay halkee ayay ka soo bilaamatay sidoo kale in aad ogaatid sheekadan dhiirigelinta leh iyo waayaha uu ninkani soo maray si aad wixii kala gudboon aad uga qaadatid iyo samirka ay leedahay in loo samro in guul la gaadho.